Access granted. Access granted. Access granted. Assalaamu calaykum. Kadib doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka sanadii 2016 uuna ku guuleystay Donald Trump, doorashada kadib waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in hackers ama burcadda internetka wax ku dhaco u shaqeeya dowladda Ruushka ay jabsadeen xogaha ku saabsan doorashada, saameyn ay ku yeesheen natiijada doorashada oo sheegaysa inuu Trump ku guuleystay madaxtinimada dalka. dhacdadan ayaa muran xooggan ka dhexdhalisay labada hay-adood ee ugu waaweyn ee qaabilsan nabadgelyada waddanka Mareykanka, FBI iyo CIA-da. CIA-da waxay sheegtay in xogta la jabsaday codadkana wax lagu daray, halka FBI-da ay sheegtay in aysan jirin wax cadeymo ah loo hayo in doorashada la jabsaday. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin CIA-da iyo FBI-da? CIA iyo FBI ugu horreyn waxay ku kala duwan yihiin heerka ay gaarsiisan tahay awooddooda shaqo. FBI-du waxay qaabilsan tahay nabadgelyada gudaha Mareykanka iyo ilaalinta iyo ku dhaqanka sharciga gudaha dalka, halka CIA-du ay qaabilsan tahay ka shaqaynta arrimaha dibadda sida aruurinta xogaha guud ahaan ka baxsan waddanka Mareykanka. Si kale haddii aan u dhigno, waa jawaasiis CIA-du. waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin labadaani hay-adood. FBI-du waa dad la yaqaan, waxay leeyihiin darees u gaar ah oo lagu garto, halka CIA-da aan la aqoon cidda yihiin uu ka mid noqon karo qof kasta, ayna u badan yihiin dad dharcada. sidoo kale sida aan loo sheegin dhaqaalaha ku baxay aan loo sheegin shaqada ay qabtaan CIA-du. sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin FBI-du waxay samaysaa keliya baaritaan, halka CIA-du shaqadeedu ay tahay xog aruurin keliya. FBI-du inta badan waxay ka shaqaysaa xiridda iyo ilaalinta sharciga gudaha Mareykanka, halka CIA-du ay ku mashquulsan tahay inay dibadda ka keento xog iyo macluumaad si loo sugo danaha guud ee Mareykanka. waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin FBI-du looma ogola inay waddan kale heshiis kala gasho arrimo ku saabsan amniga, halka CIA-da ay awood u leedahay inay heshiis la geli karto sirdoonnada waddamada kale, xogagna ay la wadaagi karto. haddaba haddii aan ogaanay shaqooyinka ay kala qabtaan, su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay labadaani hay-adood wada shaqayn ma yeelan karaan? jawaabtu waa haa. tusaale ahaan, sannadii 1979kii maray FBI-du ay doonaysay in la xiro dembiilayaal waaweyn ee deganaa jasiiradda Bahamas, ayaa waxaa joojiyey howlgalkaasi CIA-da oo dembiilayaashaas ka doonaysay inay Mareykanka ka caawiyaan soo badbaadinta boqorkii Iiraan ee ka baxsaday dalka kadib markii ay gembiyeen culimo uu hogaaminayo Ayatollah al-Khomeini. markaas kadib waxaa la isku raacay in qabashada burcadda ay ka muhiimsan tahay badbaadinta boqorka. tusaalahan waxaan si fiican ugu fahmi karnaa in labada hay-adood ay kala shaqo yihiin, laakiin mararka qaar ay soo dhexgeli karaan shaqooyinkooda. kala duwanaanshaha labadaani hay-adood waa mid sharci ah, aan wax dhib ah u keenin labada dhinac.